kulankan ay isku yimaadeen qaar ka mid waxgaradka odayaasha iyo weliba sidoo kale haweenka Soomaaliyeed oo ka dhacay magaalada London ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu soo bandhigayay xisbiga cusub ee la magac baxay xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee magaciisa markii la soo gaabiyo loo yaqaano TIR. xisbigan TIR ayaa waxaa gudoomiye u ah Injineer Saalax oo asagoo hore u ahaa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee dowladii hore ee Soomaaliya. waxayna mas'uuliyiintii kulanka ka soo qayb galay sheegeen in xisbigan hore lagu diiwaangeliyay dalka balse looga baahan yahay gudoomiyahana ay kula dardaarmeen inuu ka dhaadhiciyo qurbo joogta fikirka iyo weliba mowduuca uu xambaarsan yahay xisbiga TIR. ayagoona sidoo kale intaasi ku daray in xisbiga ay la dhacsan yihiin mowduuca uu soo bandhigay gudoomiye Saalax, waxaana intaasi ay ku dareen inuu halkaasi kasii wado dadaalkiisa gaar ahaan ku aadan cadaaladda iyo midnimada. midnimada iyo cadaaladda ee TIR markii la soo gaabiyo loo yaqaan TIR oo ka mid ah xisbiyada dalka ka furmay si mataqaanaa multi party systemka wadanka uu ku shaqeyn doono. xisbi ka mid ah oo hadafkiisa uu yahay magaca aad ka garanaysaan midnimada iyo cadaaladda. xisbigan wuxuu ka mid yahay xisbiyadii ugu horreeyay oo dalka laga diiwaangeliyay, wuxuuna kaga jiraa qodobka 9aad ayuu kaga jiraa diiwaangelinta komishanka doorashooyinka qaranka. runtii waxaa dhinaca bidixda iga fadhiya gudoomiyihii xisbiga Injineer Saalax Sheekh. dowladeena waa dowlad federaal ah, waad ogtihiin. mar hadday dowladdu federaal tahayna kalama maaranto siday uga shaqayn lahaayeen injineeri adigan aan kula dardaarmanayna inaad ka shaqaysaan wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo ma arkaysaa ee dowladda, isla markaasina xisbiyadu inay noqdaan xisbiyo wada shaqeeya laftooda kana shaqeeya midnimada ummadda Soomaaliyeed, maadaama ummadda Soomaaliyeed ay soo martay dhib fara badan iyo daal fara badan iyo dagaalo fara badan iyo colaado fara badan ay soo martay. ayna naga noqon xisbiyadu xisbiyo qabiila iyo inay naga noqon xisbiyo kooxaysi ay noqdaan xisbiyo ka shaqeeyo danta guud iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. annagu haweenka Soomaaliyeed xisbi alla xisbigii aan ka dhex aragno inuu masiirka haweenka iyo qoontada uu ku leeyahay waxtarka siday u muuqdaan aan xaqiraynin oo kasta soo dhaweynina. annaga xisbiyada dalka xisbigan hadda waxaan ka aragnaa inuu hooyada iyo dhallaanka uu ka tarjumayo. runtii pointiskaas waa qaadanaynaa waanan fiirinaynaa. runtii annaga hooyooyinaan nahay inaan ummadda la qaybsado. xisbigan aniga waxa maartay ii soo jiitay oo ugu horeeya waxay ka mid tahay inuu haweenka wax u ogol yahay. midda kale ay soo jiidato waxay tahay inuusan ku shiraynin Kenya, inuusan Nairobi ku shiraynin, inuu cadawgeena uusan annaga hoos geyn karin. annaga si kastoon isku dagaashanaa shirkan wuxuu ka dhacayaa Soomaaliya. xisbi aaminsan inay meelaha inta ku wareegaan dadka annaga danaheena Soomaaliyeed aan ogolayn ay hoos geeyaan oo annaga gooni lacag noo kala siiyaan annaga danna ugu ma jirto. xisbi waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaaliya uu iska dhex arki karo. 4.5 baan laga dhigay xisbigan. hadda anigu aan ka imaaday Puntland ama Jubaland iyo galmudug kulli waa iska dhex arkaysaan. ugu faraxsanahay waana u baahanay runtii waa loo baahan yahay idinkana waxaad kula dardaarmayaan xagga ka istaagina xagga ku eekaanina dib badan baad kala kulmaysaa runtii dib badan ayaad kala kulmaysaan annaga Soomaalina waxa way dhibkeena iska badan in aad sabirka u yeelataan. dhanka kalena gudoomiye Injineer Saalax oo ah gudoomiyaha xisbiga TIR ayaa isaguna mar mikrofoonka lagu soo dhabeeyay waxa uu mahadceliyay jaaliyadda, waxaana intaasi kadib oo sheegay ama halkaasi oo ku soo bidhaamiyay tiirarka oo damacsan yahay haddii xilka oo ku guuleysto xisbigiisa. annaga marna ma u dul qaadan karno in mitir Soomaaliya dhulkeeda ay leedahay in faraha la soo galo, marna uma dul qaadan karno hadal xataa in yiraahdo hadalka naftiisa waa fuduul wey. barnaamijka xisbiga waxaa ka mid ah in guryeenta in magaalooyin cusub la sameeyo, in qof kasta Soomaaliya oo guri oo ku noolaad inuu helo. dhulka waa naga weyn. waxaa ka mid ah in dekada ugu weyn Africa inaan dhisno. waxaan leenahay badda ugu weyn soo African leenahay. barnaamij xisbiga waxaa ka mid ah in duurjoogta in la daryeelo. waxaa ka mid ah in geeda badan la abuuro. waxaa ka mid in laga hortago xaluufinta dhirta ayaa ka mid ah. xisbigan wuxuu empower gareynaya waxa way hooyooyinka way, wuxuu empower gareynaya waa dhalinyarada way, wuxuu empower gareynaya in Soomaaliya ay federaal inay gaarto nabad gaarto, in dhaqaalaha kor loo qaado, in dekada weyn la dhiso, in ay Soomaaliya la tartanto wadamada kale.
ma aha markii ugu horeysay ee magaalo london lagu dhawaaqo xisbi siyaasadeed, balse xisbigan wuxuu ka mid yahay axsaabta jaaliyadda soomaaliyeed ama qurbo joogta ayagu ay ku dhawaaqayaan, kuwaasoo la damacsan in ay ka qayb galaan doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka soomaaliya sanadaha soo socda. cabdirashiid maxamed nuur cabdirashki, Universal TV, London.